wasiirka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka galmudug Naciima Maxamed Maxamuud Atoosh ayaa kormeer ku tagtay deegaanada Bariga gobolka Mudug deegaano ay ka mid yihiin afar waaqo iyo sidoo kale Boqolo iyo Qoryoweyn ayay kormeer ku tagtay wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka galmudug qaar ka mid ah dadkii ay la kulantay wasaaradda ayaa waxay ugu warbixiyeen xaaladaha caafimaad darro ee ka jira deegaanadan hoos yimaada degmada afar waaqo ee gobolka Mudug meeshaan sida aad u aragteenba dadkeedu waa tiro badan yahay dad ilaa 500 qoys ah ku soo qaxay iyadoo awal magaalo iska danyar ahayd dagaal ka soo qaxay dadku waxay la ciirciiraysaa dadka ku soo qaxay la ciirciiraysaa baahiyo badan baa ka jira waxa kamid ah ceel biyood ma leh iskuul ma leh maadiila ku roonay nadaafada xaggeeda xag lafteeda waa ka xogaa way ka hooseysaa oo lagama kaabin waxyaalo badan baa iska jira caafimaadka xaggiisa laftiisa waa hadii la kulmo isbitaalka ma leh farmashaal xataa waa weyn oo macnaha caalamiga oo si fiican u shaqeeyo ma leh xarun caafimaad ma u baahannahay inta hadda wadankaani waxa weeye wadan dagaalo badan soo maray oo burbur ah wax qabad badan oo hadda u yimid aysan jirin weeye sida hadda ma u jeedaaday la og yahayba waxaan marka leenahay wixii soo gaaran waa ka mahad celinaynaa baahiduna way badan tahay dadku wuu badan yahay magaalooyinku way badan yihiin hadda dadka hadda magaalooyinka afar waaqo kale adigu dhulal badan oo waxa jira tuulooyin oo aan la tagin oo hadda dadkooda meesha isugu yimid dadka hadda meesha isugu yimid Naciima Maxamed Maxamuud Atoosh wasiirka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka galmudug ayaa waxay ku baaqday dowladda federaalka Soomaaliya iyo hay'adaha samafalka in ay gurmad degdeg ah la soo gaaraan dadka ku dhibaataysan deegaanka Qoryoweyn ee dhaca bariga gobolka Mudug isla markaana hoostaga degmada magaaladan hadda aan sii joogno waliba xitaa xarun caafimaad ma laha health post xitaa ma laha hal iskool ma laha 10 kun oo ciyaalaha jooga meel aan iskool lahayn on xarun caafimaad lahayn oo horumar lahayn dowladda federaalka waxaan u sheegayaa meeshaan il gaar ah inay ku soo fiiriso waa meel dispute area ah waa deegaan muran ku jiro maalin walba waxa u sii dheer colaad iyo wax kale u sii dheer iska badaa horumar hay'adaha internationalkana waxay u sheegaynaa meeshaan in iskoolada iyo waxbarashada ay soo gaarsiiyaan hay'adaha ka shaqeeya galmudug gaar ahaan iyo inay soo gaarsiiyaan skillska hay'adaha yimaadaan oo tababaro xitaa xagga iskoolada dhalinyarada loo furo xirfado ay ku shaqeystaan haddii ahaato baddi baa u dhow kalluumaysiga haddii ahaato xagga alwaaxda haddii ahaato korontada dhinac walba in laga soo gaarsiiyo waxay hadda haatan degdeg ugu baahan yihiin xarun caafimaad iyo waxay u baahan yihiin iskuullada ugu daran mobile team ka yimaada afar waaqa soo gaara oo aan tirsaneen xitaa oo anagu bariyo hay'adda aan barinay Safe UK waxa dhacday oo maanta halkan na soo gaarsiiyay qeyr Allah siiyay hay'adda UNCHR wax u garatay maadaama reer Boqolo dad u qaaday kii Hiiraan oo kala aha cid isu sheegtayna ma laha oo waa gaarsiinay federaalka wasiir Xamsa uu og yahay sawiradana wuu haystaa wax deeqa aan ka aragnay ma laha Siraaj Yuusuf galmudug TV galkacyo